dhammaan warbaahinada ka faallooda kubadda cagta waxa ay hadalhayaan Liverpool iyo ciyaaryahanka Lyon Nabil Fekir. ciyaaryahankan u dhashay wadanka Faransiiska ayaa maalmahan la hadalhayaa inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Liverpool. warar kala duwan ayaa soo baxaya, waxa ay sheegayaan qaarkood inuu ku baasay tijaabada caafimaadka ee Liverpool, qaarna waxa ay leeyihiin Lyon waa ay diiday ciyaaryahankan inuu ka tago. Liverpool waxa ay soo bandhigaysaa xidigan maalinta berito. intaas waa cinwaanada ugu weyn ee xidigan laga qoray maanta, balse waxaa ka jira wararka sheegaya in ciyaaryahankan la yiraahdo Nabil Fekir uu kooxo badan uu ka doortay sidii ugu biiri lahaa Liverpool. falanqeyn badan ayaa jirta oo ah in ciyaaryahankan marka koowaad uu rabo inuu la shaqeeyo tababaraha reer Germany ee lagu magacaabo Johan Klopp, kaasoo inta badan aan la dagaalin fursadna siiya xidigaha uu jecel yahay. tababaraha reer Germany ee Jurgen Klopp ayaa sanadkiisa saddexaad ku qaadan doona kooxda kubadda cagta Liverpool, isagoo qorsheynaya inuu dhiso koox diyaarsan oo xil ciyaareedka dambe la soo shirtaga. wargeysada ka soo baxa dalka Faransiiska waxay baahiyeen in xidiga reer Faranse lagu magacaabo Nabil Fekir uu aqbalay ku biiritaanka kooxda kubadda cagta Liverpool, halka kuwa qaarna ay sheegeen in madaxweynaha kooxda kubadda cagta Lyon uu warkaas beeniyay. nambar kala duwan ayaa baraha bulshada lagu baahiyay, sida nambarkii hore ee Steven Gerrard, nambarka 8aad, nambarkii hore ee ciyaaryahanka Liverpool ka tagay ee Philippe Coutinho ee nambarka 10aad iyo kuwa kale. balse Liverpool ayaa bixin doonta 48 milyan ilaa 53 milyan inta u dhaxaysa, iyadoo majalada Metro ay baahisay in ciyaaryahankan heshiis 5 sanadood ah uu la gaaray kooxda kubadda cagta Liverpool. wargeyska Express oo ka soo baxa dalka Ingiriiska waxa uu baahiyay warbixinta ka duwan, waxaana uu sheegay Nabil Fekir ayaa noqday ciyaaryahankii saddexaad ee Liverpool ay soo qaadato ayuu cinwaan kaga dhigtay. Express Sports ayaa fahamsan, gaar ahaan wariyaha la yiraahdo Michael Edwards, in Liverpool ay soo gabagabaysay ciyaaryahankan iyadoo shaqaalaha caafimaadka ee Reds ay ku sugan yihiin Faransiiska si xidigan ay tijaabada caafimaadka u marsiyaan. xidigan ayaa ku mashquulsan waajibaadka koobka adduunka ee 2018, wuxuuna xirada tababarka ee xulka qaranka dalka Faransiiska uu ku mari doonaa tijaabada caafimaadka. Liverpool ugu dambeyn waxaa laga sugayaa ciyaaryahankan inay ku dhawaaqaan, kaasoo noqon kara saxiix saddexaad ay sameeyaan xil ciyaareedkan kadib Naby Keita ciyaaryahan Fabinho.